dhawaan ay ahayd markii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi isaga iyo wafdi uu hogaaminayo ay safar ku aadeen cariga dalka Mareykanka markay ka soo laabteen safarkaasi durbo waxa muuqato tallaabooyin horumar ah oo ay qaaday dawladda Mareykanku oo kuwaasi oo kala duwanaanshaha xukuumadaha Soomaaliland iyo Soomaaliya war ka soo baxay xafiiska safaaradda Mareykanka ee Nairobi ayaa lagu sheegay in aan aqoonsanayn dukumentiyada Soomaaliya laga soo qaatay ee bixisay dawladda federaalka ee Soomaaliya balse taa bedelkeeda ay aqoonsan yihiin waraaqaha ama dukumentiyada ay sameeyaan laamaha socdaalka Soomaaliland arintan ayaa waxay saameyn daran ku yeelatay dad badan oo Soomaali ah kuwaas oo ku nool koonfurta Soomaaliya ee dawladda federaalka ay maamusho balse aan gacanteeda ku jirin dadkaasi oo xareystay barnaamijka Bakhtiyaar Nasiibka ee loo yaqaan lotteriga kuwaas oo dukumentiyada safaaradda Mareykanka ee Nairobi ay u sheegtay in aan aqoonsanayn sidoo kale tallaabadan ay qaaday safaaradda Mareykanka ee Nairobi ayaa saameysay dadka u safraya arrimaha caafimaadka waxbarashada iyo qoysaska doonaya inay dib u midoobaan kuwaas oo hadda walaac xoogan muujinaya sanadii ugu dambeeyay dawladda Mareykanku waxay ogolaatay in baasaboorka Soomaaliland lagu gaxeeyo dadka qoysaska ee doonaya inay dib u midoobaan kuwaas oo dhammaan waraaqahooda dukumentiyad lagu xareeyay baasaboorka Soomaaliland sanadkii tagay 2021 ayaa Soomaali fara badan waxay xareystay barnaamijka Bakhtiyaar Nasiibka ee loo yaqaan lotteriga waxaana noqonaysaa tallaabadan Mareykanku qaaday mid niyad ku abuuraysa dadkaasi warka ay shaacisay dawladda Mareykanka ee ku saabsan diidmada dukumentiyada dawladda federaalka ee Soomaaliya bedelkeedana ay ogolaatay kuwa Soomaaliland ayaa muujinaya sida ay Washington u dareysan tahay kala duwanaanshaha labada dal ee jaarka ee ku wada yaala Geeska Afrika iyadoo dalalka caalamku sanadii ugu dambeeyay ay si dhow ula socdeen dhaqdhaqaaqyada horumarka dimuqraadiyadda iyo ammaanka ee Soomaaliland iyo doorashooyinkaana qaaday ee qorisku dhiibka ee ka socda Soomaaliland dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahoodu ku helaya adeegga e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida taxalladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed